shirkun sida wada jirka iyo shir gudoomiyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare iyo saacado uu ku socday magaalada Baydhabo Maylan ku hadlay horumarinta dhaqaale korinta tacbishada beero xoojinta amniga iyo howlgallada la kala dagaalamaha maleeshiyaadka Al-Shabaab ku shaqeeyo ka mashruucyada horumarineed ee laga dhiso jidadka xarumo dowladda iyo goobaha danta guud mayna shirka ku qayb galay xubno ku tirsan golaha wasiirada lamada dowlad goboleed Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed safiirka European Union fadhi Soomaaliya Swedish iyo madaxkal oo ka socday hay'ado deeq bixiyaalka madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Laftagareen oo furay shirkadina inuu safadii madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare iyo ku hadalay muhiimada uu san leeyahay shirkun lamada dowlad goboleed maynu tilmaamay intii muhiimiyay intii la ku wada hadalo xoojinta xiriirka iyo walwada qiibsadowga Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed oo hata xiriir jooyay ka usafayla waxaan rabaa inaan u mahad celiyo wafuudda ka kala timid oo ugu horeeyo madaxweynaha Hirshabeelle iyo wasiirada Hirshabeelle waxaan kala rabaa inaan u mahad celiyo wafdiga uu hogaaminayo safiirka European Union iyo safiirka Sweden maashaha ay noo yimaadeen shirkan noogu yimaadeen aad iyo aad ay u mahadsan yihiin soo dhawaada aad baan ugu faraxsanahay in ay noo yimaadaan labadaba oo shirk aan inta ku wada qabsano oo aayaha iyo mustaqbalka iyo horumarinta Soomaaliyeed gaar ahaan labada dowlad goboleed ee Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed looga shirka iyo saas oo kale intii uu socday meel kala faguray suurtagalnimada xoojinta ajandiyaalka shirka oo hay amniga iskaalada ka dhaqaalo lamada dowladood horumarinta beero xoolo iyo kanaalo biilan soo biyo kaabiyaalka dhaqaalo jid dhisowka wada shaqeynta hay'ado lamada dowladood iyo qodobo kale mayna warbaahintan ku warbiyay nuxurka shirka Axmed Madoowe Nuunow Maxamed wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta dhaqaalo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo ee caasimadda ku meel gaarka Koonfur Galbeed shir ballaaran ay wada shir gudoominayeen madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Maxamed Cabdi Waare shirkaas oo ka soo qayb galeen labada gole ee wasiirada oo Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed iyo safiirka qaramada safiirka oo EU-da iyo safiirka dowladda Sweden-ka iyo madax kale oo la socotay waxa qayb ka shirka oo mudan in la xuso madax ka socotay dowladda federaalka wasiir iyo xildhibaano ajendaha shirka wuxuu ahaa aan kala hadlaynay EU-da arrimo amniga guud ee labada dowlad goboleed sidii la iskaga kaashin lahaa xasilinta labada dowlad goboleed iskaashi dhaqaale ee yeeshaan labada dowlad goboleed Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed qaasatan horumarinta beeraha horumarinta xanaanada xoolaha horumarinta kalluumaysiga iyo in oo la iska kaashado kaabayaasha dhaqaalaha wadooyinka isku xiri lahaa labada dowlad goboleed sidii loogu dhisi lahaa elabooro iyo kaabayaasha kale ee dhaqaalaha waxa kale loo hadlay dib u heshiisinta waxa kale loo hadlay u helidda xal waara arrimaha barakacayaasha xoojinta hay'adaha dawliga ee labada dowlad goboleed ayaa looga hadlay shirkii guul ku soo dhamaaday waxa isugu haray shirka markay noo fureen labada madaxweyne iyo safiirada waxa isugu haray shirka isugu haray qolooyinka technical teamka iyo wasiirada si ay u sii daadajiyaan ama si qoto dheer ugu sii wada hadlaan arrimaha ay madaxweyneyaalka ay noo iftiimiyaan hadduu alle idmana waxaan ka soo saari doonaa qoraal dheer iyo sidii loo qaban lahaa iyo ajandaha iyo barnaamijyada 2020 iyo inta ka sii horeyso wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalo dowlad goboleedka Hirshabeelle Guuleed Macalin Cabdullaahi iyo dhinajay warbaahinta la hadlay maynu ku warbiyay kan Hirshabeelle ahaan shirkun muhiimad u san leeyahay runtii labada gobol waxay ka midaysan yihiin dhinaca macnaha xoogga wax soo saar waa deegaanka Shabeellaha Dhexe iyo macnaha South West Koonfur Galbeedba waa dad macnaha boqolkiiba 80 ay yihiin beeraley iyo xoolo dhaqato in beerihii loo helo xal dhab ah sidii wax loogu qaban lahaa dadka barakacayaasha ah loo heli lahaa xal waaro oo dadkii macnaha xal loogu helo sidii shaqo abuur iyo loogu abuuri lahaa marka labada state
waxay ka midaysan yihiin sidii loo marinalay lahaa hadafka iyo macnaha natiijada guud oo ah soo noolaynta iyo isku filnaansho dhaba inay labada isteed ay yeeshaan marka shirkan wuxuu ku bilowday guul insha Allah ta'ala macnaha ay sheeg wuxuu ku dhamaanayaa guul aniga iyo wasiirka qorsheynta oo dhinacayga fadhiya macnaha ay sheeg Axmed Nuunow oo koonfur galbeed ah waxaan isku aragti ka nahay in reer Hirshabeelle iyo reer maxaan lahaa ay sheeg koonfur galbeed ay helaan isku filnaan dhab ah ayagoona macnaha gacan hoorsan hay'ado caalami ah ama hay'ado gaar ah oo ay xoolahooda ay u helaan xal lamadi December 2019 ka yahay markii magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay iyo hiliis wada shaqeyn iyo bishal saxiisadeen lamada dawlad goboleed Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed shirkungeeka ku dhig magaalada Baydhabo ee xarunta kumeeldirka dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee lagu hadalay horumarinta bulshada ka nool gobolada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle may qayb ku ayaa hiliiskii oo muuqda miradhaljay Faysal Maxamed Isa warbaahinta dawladda Koonfur Galbeed aqalka madaxtooyada magaalada Baydhabo